gabadh fiican oo uu Alle ku arsaaqay dabeecad wanaagsan, midabkeeduna uu yahay maariin. Waxa ay si kaamil u xifdisay Qur'aanka Kariimka. Waxa ay nolosheeda iyo shaqooyinka ay qabanaysa dhan ay ka yeeshay kuwo Alle dartiisa u barax tiran. Waxaa ka dahay guurkii ayadoo wanaagsan, akhlaaqdeeduna ay wanaagsan tahay, midabkeeda maariinka aawadeed. Saas oo ay tahay, ma ahayn mid murugoota ama cabata, bal waxay ahayd mid Alle ku xamdisa waqti walba. Waxay ahayd mid jecel awlaadda, jecel aan xad lahayn. Waxayna ula dhaqmi jirtay si galgacayl leh oo wax la mid ah aysan jirin. Waxa ay gaartay guur la'aan ilaa da'deedu ay gaartay 35 sano. Maalin maalmaha ka mid ah, waxaa u timid haweeney ay daris ahaayeen. Waxayna u sheegtay in ay doonayso in ay u guuriso nin ay xaaskiisa geeriyootay oo haysta 4 carruur ah. Laakiin waxa ay shardi uga dhigtay in ay ninka aysan ula macaamileyn sidii xaaskiisa oo kale, laakiin ay korinayso carruurtiisa, gurigana ay u joogayso sidii jaariyad oo kale. Jacaylka ay u qabto awlaadda aawadeed waa ay aqbashay. Guurkiina waa uu dhacay, waxa uuna ku dhacay si heshiis ah. Waxaa ka soo wareegatay 1 sano. Haweeneydii waxay awood u yeelatay in awlaaddii ay koriso sidii carruurteeda oo kale. Waxa ay bartay Qur'aanka Kariimka iyo tarbiyada Islaamka. Waxa ay dareensiisay naxariis badan ilaa ay gaaraan heer ay qadariyaan oo ay u jeclaadaan sidii hooyadood oo kale. Dhammaadkii sanadkaas, ninkeedii waa uu guulaystay. Waxa uuna ka mid noqday dadka ugu taajirsan magaalkaas. Waa uuna jeclaaday xaaskiisa. Waxa uuna bilaabay in uu la dhaqmo sidii xaaskiisa oo kale. Sanado kadib, waxaa geeriyooday ninkeedii. Waa ay murugootay, murugo fara badan ayay dareentay. Dhimashadii ninkeeda kadib, waxa ay aragtay warqado ay ku qoran yihiin in ninkeedii uu ku qoray hanti aad u fara badan. Haweeneydu waxa ay ka baqday in awlaadda ay diidaan, laakiin jacayl weyn ay u qabeen aawadeed waa ay oggolaadeen. Maalin maalmaha ka mid ah, waxay aaday xafiiskii maxkamadda. Waxaana joogtay gabadh qurux badan oo sekretariyad ah. Waxa ay ka naxday sidii ay u taal haweeneyda, waxayna eegtay eegmo aad u xun. Haweeneyda markii ay dareentay in wejiga sekretariyadda ay ka muuqato cabsi, waa ay dhoola caddaysay. Waxayna uga sheekaysay qisadeeda. Ninkeyga oo dhintay ayaa waxa uu igu qoray malaayiin lacag ah. Waxaan rabaa in aan u celiyo carruurtiisa maalkii aabahood. Waana kuwan warqadihii iyo saxiixyadii caddeynaya hadalka aan ku hadlayo inuu yahay mid sax ah. Sekretariyaddii waa ay yaabtay. Hadal ayaana ka soo bixi waayay afkeeda, ayadoo aan fariirsan oo yaaban. Markii ay aragtay haweeney doonaysa in qalin afkiisa ay iskaga wareejiso malaayiin dollar ah oo ay iyadu leedahay. Gabadhii sekretariyadda ahayd, iyadoo yaaban oo xishoonaysa, ayaa waxa ay haweeneyda ku dhahday, maad reebatid hal guri oo aad adiga degto, adigoo ku xisaabtamaya isbeddelka imaan kara zamanada soo socda. Haweeneydii waxa ay ku jawaabtay, maya, waxa igu filan jacaylka ay carruurta jecel yihiin. Allihii igu arsaaqay jacaylka iyo awlaadda. Guurka kadib, asaga ayaa arsaaqi doona, wax walbana i siin doona. Gabadhii sekretariyadda ahayd waa ay istaagtay. Waxa ayna gelisay laabta. Iyadoo ilmeynaysa ayay u cudur daaratay. Waxa ayna ku dhahday, gabadh kasta oo qurxoon ma wanaagsana, laakiin gabadh kasta oo wanaagsan ayaa qurxoon.
Marka ay haweeneydii guriga ku soo noqotay iyadoo gacanta ku sida warqadihii ay ugu tanaasushay hantida carruurta, waxa ay aragtay carruurtii oo hanti ka badan ayada ugu tanaasulay jacayl iyo ixtiraam ay u hayaan aawadeed, ayaga oo u celinaya abaalkii ay u gashay, ayaga oo abaalmarin uga dhigaya qalbigeeda wanaagsan ee qurxoon. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.